waxay doonaysay inay qubaysato balse laba nin oo wajiyada xiran ayaa si lama filaan ah u soo galay. nimankii way xireen ayagoo aan wax sharxaad ah bixin, kadibna doon ayay ku qaadeen. intaanay fahmin waxa dhacay, si xoog leh ayay badda ugu tuureen. biyaha dhexdeeda ayay si xoogan ugu halgamaysay, balse silsilad bir ah ayaa cagaha looga xiray. silsiladu aad bay u cusleed, mana awoodin inay iska furto. wax yar kadibna neef la'aan ayay la mirbeeshay. markaas ayaa wax yaab leh dhacay, indhaheedu si lama filaan ah ayay u furmeen. waxayna ogaatay inay biyaha hoostooda ku neefsan karto. intaas kaliya ma ahayn, waxay dareentay inay heshay awood qarsoon. si fudud ayay u jebisay silsiladii birta ahayd. markay xeebta gaartay ayay aragtay laba nin. waxay mooday inay ahaayeen kuwii afduubtay, sidaa darteed way ku oroday. midkoodna qoorta ayay qabatay, waraabo way qabtay ayay ku daaran ninka carrara. isla mar ahaantaasina ninkii waa u argagaxay, wuxuuna bilaabay inuu qayliyo. isagoo cabsi qaba ayuu u sheegay in keliya ay isku dayayeen inay caabiyaan, balse ayadu waxaase uma soo jeedo. waraabo way qabtaa, dagaal ay diyaar u tahay. ayadoo keligeed ahna waxay garaacdeen laba nin. faarax wuu jabay. ani haddaa ogaa lahaa ina saa ii galeys waa dhuuma lahaa meesha ma joogi leenba. may meelan ogaam dhufta muxuu u qaylinooyaa kan dabaalsanaa. laakiin ugu dambeyn markii ay sharxaadooda fahantay ayay ogaatay inay dadkan kusoo qaldantay. walwal ayaa ka muuqata, waxayna garan laadahay sababta halkaan loo keenay. haddaba si aan u fahanno sheekadan, dib inoo celiya. sheekadan waxay daas kadib alaabteedii ayay dib u qaadatay. ugu dambeynna waxay ka baxday xabsigii dumarka ee ay ku qaadatay 10 sano oo nolosheeda ah. markii ay banaanka timid ma aysan haysan wax lacaga, sidaa darteed waxay go'aansatay inay lug ku aado gurigeeda. intii ay wadada ku socotay ayaa baabuur boolis ah agteeda istaagay. booliskii ayaa weydiiyey, xagee u socotaa Marwo? waxay ugu jawaabtay inay u socoto Oxland Bay. markay si fiican u eegtay ayay garatay in sarkaalkaas uu ahaa Matt. muuqaalkan oo dhameystiran waxaad ka helaysaa linkii profilkayga saaran ama YouTube-ka ku qor @films 12. Matt wuxuu ahaa saaxiibkeedii isku fasalka ahaayeen xilligii dugsiga sare. kadib isaga ayaa u fidiyay caawinaad. si dhaqso leh ayayna gurigeeda ku gaartay. si tartiib ayay albaabka u furtay, laakiin gurigeeda cidna ma joogin. miiska korkiisa ayay ku aragtay xoogaa lacag qadaadiic ah. si caadi ah ayay u qaadatay lacagtaas, kadibna waxay sii wadatay raadinta qoyskeeda. si lama filaana xariif baskoolad wata ayaa ka hor yimid. hurguf ayaa dhex martay, ayadana way ugu baxdaa dagaalka. waxay u muuqataa inay iskarteen, wuxuuna ahaa walaalkeed. 10 sano ay ka soo wareegatay tan iyo markii la xiray. walaalkii iyo walaashii oo dib isu helay, labadoodiina way koreen. kadib gabadhu waxay soo saartay dardaarankii aabaheed. waxay sheegtay in dardaaranku ku qornaa in nuska guriga qoyska ay ayadu leedahay. waxay sidoo kale sheegtay in nuska doonta qoyska ay ayadu xaq u leedahay. ujeedadu waxay ahayd inay dib u hesho saamigeeda sharciga ah. walaalkeed ayawgii wuxuu qabay arrin degdeg ah oo uu wax ka qabanayay, sidaa darteed waxay go'aansatay in dardaaranka ay mar kale ka wada hadlaan. habeenkaas waxay tagtay xafiiska looyarka. waxay doonaysay inay ogaato inta dhaxal uu aabaheed uga tegay. looyarkan wuxuu u sheegay in aabaheed uga tegay $380,000 Mareykanka ah. lacagta ayada u qorneedna waxay ku jirtay gacanta hooyadeed. hooyo ma dhabba? hooyadeed xitaa kuma jirin wasiyadda. waxayna u maleysay in lacagtii ay ku bixisay khamri iyo waxyaabo kale. looyarkan wuxuu ku yidhi, maya, hooyada waxay lacagta ku iibsatay baar. habeenkaasi ayay aaday dhanka iyo baarka hooyadeed. si lama filaan ahna ganacsigu aad buu u socday. waxayna dalbatay cabitaan. intii ay lacagta bixin lahayd ayaa hooyadeed u timid. waxayna tiri, waan ku salaamay gabadhayda, maxaad halkan ka qabanaysaa? waxayna ku tiri, waxaan rabay inaan arko baarkaaga. hooyadan waxay ku tiri, waxaan maqlay inaad la kulantay looyarka. hooyada waxay gabadha xasuusisay in Walter Looby uu si fudud u cafin doonin. gabadhan waxay uga jawaabtay inay tahay qofka wax soo celin doona. hooyada, weli riyooyin aad leedahay kadib sanadahaas oo dhan ee xabsiga. gabadhii oo tiri, maxaad ii soo booqan weydii sanadahaas oo dhan? hooyo noocee ah gabadheeda oo 14 jir ah u ogolaatay in sidaas loo kaxeeyo? hooyada way diiday eedeynta. waxay sheegtay inaysan weligeed si toos ah ugu amrin inay dabka shido. waxayna ku tiri, waxaan u malaynayaa in sanadaha xabsiga aad ku jirtay maskaxdaada waxyeeleeyeen. kadibna waxay ku tiri, qaada lacagtaada. rosin waxay u baahan doontaa diinaar kasta. ka fogow Oribi, uma baahna saameyn xun. dhibaatooyin waaweyn ayaa ka dhaxeeyey. wadahadalkeedii ugu horeeyey muddo 10 sano ah sidaasii ayuu ku dhammaaday. kadib hooyadeed waxay aaday inay raadiso ayowgii. masogeli karaa? maxaa jira? maaragtay walaasha, dabaan wada aragtay. waxaa laga yaabaa inaa marka hore adiga kusoo booqdo. maxaa dhacaya haddii aad nagu wareejiso? lacagta sameeye awgii iyo Mark. taasi waa lacag. waxayna dib ugu soo laabatay Gilbert Yoos. waan arki doonaa. aan u soo laabano dhanka iyo gabadha. waxay aaday doontii aabaheed ka tegey. doontu waxaa ka buuxday calaamado uu aabaheed sameeyey. xasuusihii hore ayaa maskaxdeeda ku soo noqotay. markaasi waxay soo xasuustay wax uu aabaheed mar yidhi, haddii aad dhibaato gasho oo aanan agtaada joogin, halkan eeg, wax walban waxaan kuu reebay wax yar. kadib waxay baartay meeshaas. waxaan hubiyey in waxa kuu reeban ay mar walba halkan yaalaan. runtiina waxay heshay lacag badan oo qarsoon. kadib walaalkeed ayaa yimid, isagoo weydiiyey sida ay ku ogaatay. daawada adnaha neegloowe inaad muuqaalka la garayso, beedkan aad subscribe saarto. maasinid. waxay markiiba fahantay in ayowgii uusan lacagtaas ka helin kalluumaysiga oo keliya. lacagta aabaheedna waxay ka timid shaqooyinka kale oo qarsoon. ayowgii ma uusan rabin inay wax badan ogaato, sidaa darteed wuxuu u dhiibay lacagtii oo dhan. laakiin ayadu lacagtii ma doonaynin. waxay doonaysay inay la shaqayso walaalkeed. wax kastoo aabbe samayn jiray aniguna waan rabaa inaan sameeyo.
wax kastoo aad samaynaysaan waan idinla jiraa. Waxay doontii u wadeen meel fog oo cidlo ah. Doon dheereysa ayaana ku soo wajahday. Kani waa kuma? Maxaa kaa galay? Qof qalad aad keentay anigoo na weydiin. Adiguna waxaad dishay mid ka mid raggayga adigoo na weydiin. Kadib gabadhii ayaa isku sheegtay inay tahay aayowgii walaashiis iyo gabadhii baad si aan loo dareemin kooxdu si degdeg ah ay heshiis u dhameysteen. Markii la weydiiyey cid ay la macaamilayeen waxaa loo sheegay inay ahaayeen Teddy Landris oo ah dad qarsoodi badan. Waxaa loo sheegay in kastoo Teddy Landriska ay muuqaal ahaan wanaagsan yihiin haddana ay yihiin dad khatar ah oo aan la fududeysan karin. Sidaas ayayna Kaal ugu biirtay kooxda walaalkeed aayowgii. Jim kuma farxin imaanshaha Kaal wuxuuna ka shakiyay in lagu kalsoonaan karo. Aayowgii ay difaacay walaashiis isagoo sheegay inay qaraabo dhiig ah yihiin sidaas darteedna la aamini karo maadaama aayowgii hogaamiyaha kooxda cidna kuma dhiiran jirin inay ka hor imaado go'aankiisa. waxaana la ogaaday in aayowgii uu ahaa madaxa ka ganacsada daroogada. Dusha sare waxay ka ahaayeen kalluumaysato balse si qarsoodi ah ayay daroogo tahriibin jireen. mar walbana waxay la shaqayn jireen Teddy Landris. Teddy Landriskana aad bay u sir badnaayeen marka laga reebo xilliyada heshiisyada cidna uma ogolaan jirin inay isu dhawaato. haddii qof la qabtana cashar ay ugu dhigi jireen dadka kale. xitaa booliska deegaanka kuma dhiiran jirin inay farageliyaan. kusoo dhawow ganacsiga qoyska. intaas kadib gabadhu waxay aaday xeebta si ay maskaxdeeda u soo dejiso. haweeney Teddy Lander ah ayaa u timid waxayna ku tiri hadal yaab leh. waxayna ku tiri muddo dheer ayaad biyaha ka maqnayd. waxay sidoo kale weydiisay sababta ay dib ugu soo laabatay meel aan jeclayn. waxayna ku tiri way halkan u joogtaa Kaal Magtiir. maxaase dib kugu soo celiyey meesha aan ku jeclayn? maxaad raadinaysaa? Kaal oo tiri kumaad tahay? gabadhii oo tiri waxaan ahay Adriel Cadbert. waxaa laga yaabaa inaan mar kale kulanno. kadib guriga ayay aaday si ay u qabaysato. laba nin oo wajiyada duuban ayaa Salim Filana u soo galay. wixii xigayna waxay ahaayeen dhacdooyinkii bilowgii sheekada. waxay tagtay barxad waxayna heshay dhar meel suran kadibna waa ay xiratay. isla markaasina Maad ayaa yimid isagoo wata gaari boolisa. wuxuu ku yiri ma ii sheegi kartaa waxa dhacay? waxay ku tiri qof ayaa igu tuuray biyaha. Maadna wuxuu geeyay saldhigga booliska si ay warbixin u bixiso. intii ay wada hadlayeen Shariifkii ayaa ku soo laabtay saldhigga. Shariif Meg markiiba way garatay. isaga ayaa horay u xiray si ay dhibaatada uga fogaato. si aamusnaan ah ayay ugu baxday albaabka dambe. kadibna guriga ayay timid waxayna aayowgii ugu warantay afduubka. isla mar ahaantaasina aayowgii wuxuu la yaabay sida ay ugu baxsatay. ayadana waxay tiri ma aqaano. waxa kaliya ee ay ogeed waxay ahayd in wax yaab leh dhaceen. aayowgiina wuxuu ka walwalsanaa inay aad u murugootay. sidaa darteedna wuxuu ku yiri waxaas oo dhan muhiim ma aha. Waatan ma Adriel Cadbert. sabab? waan la kulmay. ayadu Teddy Lander maaha miya? haa ayada ayaa madax u ah laakiin wax dhibaataa kuuma geysan doonto. sidee ku ogaatay? ganacsi ayaan wadaagnaa taasina macne ma samaynayso. xageed qof baa sameeyey? arrintan aniga ay ugu saabsan tahay adiga ma aha. xageed u socotaa? inaan ogaado qofka faragelinaya ganacsigayga. waa hagaag anigana halkay iska joogi doonaa si markan la ii dilo. si amnigeeda loo sugo aayowgii wuxuu u reebay baskoolad. wuxuuna Jim u diray inuu ilaaliyo. dhanka kale gabadha hooyadeed Rosie ayaa Jim weydiinaysay su'aalo. haddaba maxay weli u nooshahay? taas ayaan rabaa inaan ogaado Rosa. waxaan helay xog ku saabsan ninkii i doonayay. maxaad igu sheegi la'daa wax ku saabsan Kaal? keliya dhamee arrinta. waxaaba la ogaaday in wax walba ay qorshaysay gabadha hooyadeed Rosie. isla waqtigaas aayowgii wuxuu wacay Jim wuxuuna ku yiri inuu guriga yimaado si uu u ilaaliyo walaashiis. taas oo Jim siisay fursaddii ugu habbooneed oo qorshihiisa ku fulin lahaa. dhanka kale gabadhu waxay saxanka ka buuxisay biyo si ay ugu qubaysato. waxayna doonaysay inay ogaato haddii ay biyaha ku neefsan karto. kadib jirkeeda oo dhan ayay gelisay biyaha dhexdeeda. wax yar kadibna way miirbeeshay hawala'aan darteeda. laakiin isla markiiba intaas kadib indheheedu Salim Filana ayay u furmeen. afkeeda ayayna furtay waxayna ku neefsatay biyaha hoostooda. arrintaas ay aragtay gebi ahaanba argagax ayay ka qaaday.